bangiga caalamiga ee Premier Bank ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafuray barnaamij lagu magacaabo adeega bulshada. Barnaamijkan ayaa waxa fulintiisa ku tartami doona qaar kamid ah dhalinyarada wax ka bartay jaamacadaha dalka. Waxaana furitaanka barnaamijkan ka soo qayb galay maamulka Premier Bank, gudoomiyaha jaamacadda Badar, agaasimaha wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshada. Ugu horreynba waxa madasha furitaanka barnaamijka ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar, Mubaarak Ibrahim Aar, oo isagu ah hal-abuurka barnaamijka adeega bulshada. ardaydu waxay ku tartamayeen in afkaar ganacsi ay keenaan cidda ku guuleysatana ay hesho abaalgud. sanadkan markii la soo gaadhay runtii muxuu ahaayay bankiga si kale ayaan runtii markaan wada fadhiisanay bankiga qaab kale ayaa runtii loo dhigay maadaama runtii duruufo adag dalka maanta ay ka jiraan baahiyo badan ay joogaan. waxaan runtii sanadkan loogu magac daray oo loo bixiyey tartanka adeega bulshada. marka ardaydii jaamacadaha ayaa tartamaysa, laakiinse sanadkan kuma tartamayaan ganacsi, waxay ku tartamayaan inay bulshadooda wax u qabtaan. waxay ku tartamayaan ardayda jaamacaadku inay bulshada ugu baahida badan leh dalka joogta ay wax la qabtaan, inay darbajiifka wax la qabtaan, indhoolayaasha wax la qabtaan, dadka naafada wax la qabtaan, dadka runtii danyarta wax la qabtaan. marka runtii ardayda runtii jaamacaadka ka socda waxay barnaamijkan dhexdiisa ay sameynayaan in bankigu uu lacag u dhiibo, lacagta marka ay bulshadii baahnayd ee hawshan u baahnayd ay wax la qabtaan. waxaana ku tartamayaan kolba siday ugu wanaagsan ay wax ugu qabtaan ayay ku tartamayaan. marka waa barnaamij aad u cusub oo runtii hore aan dalka uga dhicin. waxaa si gaar ah runtii mahadnaqiisa iska leh bankiga Premier Bank oo runtii aan isleeyahay wuxuu kaga duwan yahay shirkadaha dalka jooga. waxaa loo yaqaan creativity-ga, yacni marka fikrad cusub la keeno siduu markiiba u qaato. geestiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maamulka Premier Bank ee Soomaaliland Nuuraddiin Cabdi Cilmi oo ah banka fulinaya barnaamijkani. iyadoo markaa fikradda u mudan in la maalgeliyo oo bankigu taageero dhaqaale oo toos uu siiyo, taasoon ahayn ama aan ahayn ay tahay wax maaragtay ay ku hirgelinayaan fikradooda ganacsi. sanadkan barnaamijku waa ka duwan yahay duruufta waddanka jirta ee ka warhaysaan xanuunkan ilaahay naga haya ee COVID-19 ayaa waxaanu suuro gelinin in barnaamijka qabanqaabadiisii sidii la rabay aanu inoogu dhicin. markaa sanadkan waxaanu ku bedelnay in aynu dhaqaalihii loogu talagalay barnaamijka aanu bankigu dib ula noqonin ee uu bulshada Soomaaliland si kale uga faa'iideeyo, iyadoo fikirka sanadkan aynu bedelnay oo bankiga Premier Bank iyo agaasinka iyo isku dabaridka oo Professor Mubaarak Ibrahim Aar isagu u lahaa aanu sanadkan u bedelnay in bulshada Soomaaliland dhaqaalaha barnaamijka loogu talagalay dib loogu soo celiyo oo walibana qaybaha u mudan ee nugul ama baahan aynu ku taageerno. dhalinyarada sanadkan ku tartamaysa Raxmaan Yaasiin Abubakar, British warbaahinta SBC Hargeysa.